السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يوالكين مهدي ميعاد waxay nagu soo foodlay sanad jadiida sanada jadiid kana kulay khayrkeedii sharkeeda way wadataa ilaahay sharkeeda wata naga nabadgaliye sanadii imakana way dhamaatay sanadii 2020ka wixii dib ay lahaydna way la tagtay wixii khayr ay lahaydna ilaahay naga abaal mariyo hadaba sanad kaste marka la galayo dadka tacliinta ka hadla waxay yiraahdaan iyo dadka motivation speaker ka hadla waxay yiraahdaan waa sanada bilowgeedu waa to loogu badan yahay inuu qof kasta ahdaaf iyo goal sameeysta marka horta videoga halka dambe kugu sheegi doonaa maanta waxbaan ku soo wada sanadan cusub ee jadiidka aniga aan mahdi miicad waxbaan ku soo wada waxa aan ku soo wada horta inta aanan gelin waxaan rabaa inaan ku sheego sanad kasta marka ay bilanayso waa in aad wax qortid aad ahdaaf yeelatid ood ku waajahaysid ama kaga hortagaysid ama isku diyaarinaysid sanada cusub ee jadiidka markastana loma baahni ina sanada inaan ahdaaf iyo goals inaad yeelatid sanada bilowgeeda laakiin waa waqtiga ugu wanaagsan ee sameyn kartid taana waxay u tahay waxa weeye sanada jadiidka sida ay u tiraahdid waxa baan qabtay daraadid marka waxaan kugu saacidi goal jadiida ama hadaf jadiida sidee baad u yeelan kartaa sanada jadiidka waxyaabooyinka horta la waxa kamid ah ee ugu wanaagsan waxaan aad rajaynaysid inaad qabatid oo qortid oo istiraahdid sanada jadiidka soo socota waxaan sameyn doonaa waxa iyo arrinka baan qaban doonaa marka afka uuna ka hadlina qor taawata ugu horeysa ta kale ee labaad waxaan aad sameynaysid ha noqdo waxaan aad qoraysid ha noqdo wax aad gaari kartid ama aad sameyn kartid for example imika quraanka hadii aad rabtid inaad xafidid inaad tiraahdi ma sanada soo socoto oo dhan ayaan quraanka xafidi waayo way adag tahay qofku inuu sanado dhan quraanka inuu xafido marka taana waxay nageynaysaa hadafka saddexaad oo ah waxaan aad sameynaysid ha noqdo wax yar waxa looga jeedaa wax aad qaban kartid waxaad rabtaa inaad caafimaadkaaga inaad hagaajisid waxaad ka dhigtaa inaad tiraahdo waa inaan kookaha iyo wixii gaas la inaan joojiyo maya waxaan ku leeyahay sigaarka waa inaan sanadaa idil baakid waa inaan dad sigaarka cabtid sanadaa waa inaan baakid hadaan laba baakid ama saddex baakid hadaan cabay waa inaan baakid cabo ma aha inaad tiraahdo waan joojinayaa waayo way kugu adkaan hadaad saad laakiin markaad yareysid aad bilaa macni ka dhigtid way ku dib yaraan quraanka rabtid inaad xafidid dhamaanteed waxaad tiraahday sanadan waxaan xafidayaa laba jis markuu saa u yaraado waxay ka dhigan tahay waad sameyn kartaa laakiin xamaasadu yey ku qaadid xamaasada qaaditaanka daraadeed ay 90% marka janvier la dhaafo ama bisha January marka la dhaafo ee bisha labaad la soo galo intooda u badan ay baabi'i doontaa marka intaysi ayna u baabi'in waxa markaad yareysid waad gaari kartaa hadafkan ama ahdaaftan aad sameynaysidna dhowr meelood ha taabtaan goalskan aad sameynaysid mid waa inuu caafimaadkaaga taabto oo leedahay caafimaadka waxa baan ku sameynaya mid waa inuu dhaqaale ahaan ka taabto tiraadi dhaqaalahayga wax in ka san mid waa inuu personal noqdo oo wixii aqoon iyo waxyaabooyin aad rabto ha noqdo mid ha noqdo cilaaqada adiga iyo ilaahay ka dhaxaysa ha noqoto oo leeyahay cibaado waxaan ku hagaajinayaa mid ha noqoto cilaaqada adiga iyo ehelkaaga iyo aqaaribkaaga ka dhaxayso taana ha noqoto mid kale adiga iyo mujtamaca wixii aad mujtamaca u qaban kartid ha noqoto marka goalkan aad sameynaysid yuu noqonin wax aad iska sameynaysid intaas oo qodob mi ha taabto yani way dhici kartaa goal inaad sameysid ku saabsan caa'ilada iyo familiga mid kale oo ku saabsan shaqada mid kale oo ku saabsan dakhliga iyo waxa ay soo galaya
way dhici kartaa dhowr ahdaaf 7 ahdaaf inaad yeelin kartid way dhici karaan laakiin haddii aad ahdaafta aad yareysid way habboon tahay intaad ahdaafta badin lahayd ta kale la yiraahdo waxa weeye sanad kastaba half a team bay yiraahdaan oo ka dhigan sanadiiba haddaad magac u sameyn lahayd way fiicnaan lahayd oo tiraahdo sanadan waa sanadii visa kaba soo qaadi marka sanad baa jira anigu dhowr visa la helay waxaan u bixiyay waa sanadii visa sanad baa dhici karta inaad tiraahdid sanadii shaqada kaba soo qaadi shaqo jadiid ah qabatay sanad inaad tiraahdid malaha caafimaad ayaa waad caafimaadday Allah ku bogsiyay waa sanadii caafimaadka may waxa dhici karta inaad guursatay waxa leedahay sanadan waa sanadii guurka yani sanad kastaba inaad magac u yeeshid taana waa wax ku gargaaraysa mid kale ayadu jirto oo maalin dhaweed aan buugaan arkay 12 weeks halkay bishu ka tahay 17 halkay bishu ka tahay 12 bilood malaha waxa fiicnaan leh adoo ka dhiga 12 usbuuc taana waxa lagu leeyahay waxa weeye waa usbuuc uu ka yar yahay bisha marka bisha hadii adigu aad u consideraysid ama adigu aad u xisaabtantid sidii wax ay tahay week oo kale way ku fududaanaysaa inaad ka gaarsiisid si ay markay bishii ay dhamaataba aad u tiraahdo waxbaan qabanaya goalkan aad qabanaysid hadafkan aad sameynaysidna sanada ku xidh maye bil ku xidh adiga ay ku taalaa sidii aad isku habeyn kartid taa marka aan kaga baxo sanada jadiidka waxaan ku xigsiinayaa waxaan anigu ku hayo Facebook iyo YouTube kan aan sheenkaygan Mahdi Miicad soo galiyo badana waxaan isku dayaa inaan graphic design kaga hadlo may marka qaar kood waxaan isku dayaa inaan e-commerce kala hadlo iyo ganacsiga caadigiisa may marka qaar kood waxaan kaga hadlaa videoyaal aan dhalinyarta aan dhiirigelinayo oo intii khibrad aan soo leeyahay waxyaabooyinkan u arkayo inaad wax ku gargaari kartid ama ku anfici kartid inaan u sheego waxaan ku tali jiraa hadii Ilaahay raado inaan web ku bilaabo website development kana aan maanta isleeyahay shaqooyin wanaagsan dhalinyartu way ku heli kartaa taasoo idna isleeyahay maanta wadanka doontid ba adiga oo jooga shaqooyinka remote loo shaqeeyo ama adoo gurigaaga jooga laga shaqeeyo waxa kamid ah waa website development website-da la sameeyo marka mar hore graphic design waan ka soo hadalnay imakana waxa aan rabaa inaan ku xigsiiyo website development ka aan rabaa inaan bilaabo waayo website development marka aad tiraahdid waa cilmi ballaaran oo front end back end database waxyaabooyin fara badan kala leh marka anigu taan rabo inaan sameeyo waxa weeye aan kaga bilaabayana website-ka alifbaataa saagiisa laga bilaabo waa HTML iyo CSS bala hadii HTML iyo CSS aad garanay website-ka technology-gan dambaba xitaa hadaad baratid kullay ma wanaajinaysid marka halka ugu horeysa ee laga bilaabayay waa HTML iyo CSS na qofka markuu wanaajiyo hadhow toole waa ta ugu wanaagsan maanta YouTube-ka dad ku qortid HTML CSS develop tutorial dad ku qortid waxaad arki doontaa videoyaal malaayiin qof daawadeen malaayiinta waxa weeyaan waa meesha bilowga laga galo dad baa jira ku bilaabi karaya Wix WordPress Joomla way dhici kartaa waad ku sameyn kartaa laakiin alifbaataaga halka ugu horeysa laga bilaabay waa HTML iyo CSS wax kasta oo technology dhow lagu siiyo 100% kuma qanacsanaanaysid marka si aad gacanta ula gashid waxaad u baahan tahay waa HTML videoga hadhow toole aan bilaabi doon ayaan kaga sheekayn doonaa HTML to maxay tahay iyo CSS to maxay tahay laakiin marka videoga waxaad iga qaadataa inaan bilaabi doono HTML iyo CSS oo ka dhigan website-da sida loo sameeyo waxaan mustaqbalka ku tusi doonaa sida looga lacagaysto ama lacag aad uga sameyn kartidna waan ku tusi doonaa mustaqbalka hadii la marka video kasta waxaan soo dhigi doonaa website-kayga mahdimiicad.com way dhici kartaa YouTube iyo Facebook intaba waan gelinayaa laakiin meesha rasmiga ay isku daba xigi karaan waxay noqon doontaa website-kayga mahdimiicad.com
waana ku tus doonaa meesha course aan dhigi doono oo course-kaasoo wala geli doonto iska furnaan doona marka waa inoo iyo khamiis dambe haddii la idhaa waxaan ku tala jiraa usbuuc kastana khamiistii inaan soo geliyo marka intii ka horeysana waxaan iga leeyahay waad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.